waxaa maantay laga furay magaalada Dundalk ee dalkan Ireland kofe lagu magacaabo Banaadir Kofe oo runtii baahi badan loo qabay. Dundalk ayaa noqotay magaalada ugu Soomaalida badan marka laga reebo caasimada Dublin ee dalkan Ireland. Waxaan Mike la dhex marnay mas'uuliyiintii soo booqatay ama ka soo qayb gashay furitaanka Banaadir Kofe kuwaas oo nooga warbixiyay baahida loo qabay in la furo makhaayad Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وعواي بنادر كوفي وعواي وسود ويننا وحن بنادر كوفي وفرني إن باهي مقالة كجرتو عرقني قدام مقالة مدة دقنين وحرقني دتكينين باهي وقبان مال أو إيكوشا كستان مال إسكو ورستان أنا باهي داس كدورينو وحفرني بنادر كوفي جهد بدن لقلني ومال يرو دتكينا إسكو ورستان marka qof walba magaalada degan qof kasto oo soonaan imaanayso waa soo dhaweynayna cunto nooc kasta iyo kofe wax walba laga helaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan joognaa cafeteria Banaadir oo laga furay magaalada Dundalk. Waa cafeteria oo ma sha Allah maanta la furay waana ku faraxsanahay waana loo baahnaay. ninka furina waa uga mahad celinayna sababta ah wuxuu dareemay baahida Soomaalida meel lagu sheekaysto oo kafe laga cabo ayaan maanta haysanaa alxamdulillah. Soomaalida meesha waa noogu badan tahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ku soo dhawaada cafeteria Dundalk cafeteria Banaadir Dundalk waana mahadsantihiin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa barakatuh. ugu horeyn Allah subhanahu wa ta'ala أنت سوقري وماشان نادر كوفي إن لفرو Dundalk لفرو إلهي سبحانه وتعالى فودي ما أسكله ممكن واحد مثلاً نتكلم سوق القامي وأنت كشغيتين شعله جامني أنت متكسر شقي فود بنجري أيكم دريان باهي الصومالي Dundalk كمية كشغل أيرلاند صواباتي هيسن ميل هيسكون بعدان وهاي وحياله هي كلها هاين تبشان ما تقاموا هاين أكلان marka arintaas aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan rajaynayaa subxaana taala inay noo sii wado meesha marka waxa loo baahan yahay Soomaalida ee Dundalk degan inay si wanaagsan oo walaalnimo ugu soo dhawaadaan meelihii kale oo tagi jiray oo dadka maaragtay aan u tagi jirnay kala ajaanibta in si ka fiican loo yimaado maxaa yeelay wixii meeshaan gala oo lagu bixiyo wax community Soomaalida galay way oo dib ugu laabtay way marka waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa boodigaas iyo raggii fikrada lahaa oo shacabka hogaaminayay intii la shaqeysay gacan geystay iyo dhamaan walaalaha Dundalk joogta maaragtay arintan ku farxay waxaan rajaynayaa in xoojisa midnimadeeni Dundalk ka jirtay iyo gudaha Ireland tusaale fiican oo noqotay insha Allah taala arintaas ilaahay waxa ka soo qabanayna inuu fajiyo tawfiiq lana oo Soomaali joogtay insha Allah taala iyo guud ahaan iyo gaar ahaan dadka degan Dundalk insha Allah taala barakallahu fiikum jazakumullahu khayr. Assalamu alaykum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آدي هذا هو فرح صناعي منطقة أنا كسوق يبقى حفلة عن وفراي بنادر كوفي خاصة كإسكو حلقة عمي ولا لها أو إسكو حلقة عمي إني ولا لها صوماليات سودويان من أفران آدي هذا هو مدعينا صوماليين آدي يكون أكسنتها صومالي ذا إني إسوال عشان شنك ملك اللي جيل هاي إني اللي كانوا ماشى أو ولا لها efforten si aan u helno bulshooyinka kale oo naga banaanka naga jiraan meeshan anaga aan u camirno shilinka meel kale geleen waxa u baahan anaga u baahan qof walba oo Soomaaliyeed oo Dundalk degan waxa u baaqaa inay ku soo dhawaato maqaayada laga furay Dundalk Banaadir Kofe. مقايد والله بعد ما شاء الله أحسن أصحابتين إن نون سمعان وأنا سود وهنا مقالة ميلا فريست مالهن لكن هذا ميلا كوشة كسر أسكوي ما أنا ما هاي ما شاء الله هذا ما استطاع لا هذه معمرة في بنادق هذا وفرح سنة ما أنت ما شاء الله ما دام ميل سومالي سوي ما هي سو ما شاء الله سومالي لن سو بوقنا يسو لكلا ورقة هذا نايو هذا ما شاء الله بالله أي نوتة هاي هذا وفرح سنة إن اليرادة يو رجع ضياشة يو إسكو أكان ماشي هذا وفرح سنة بقول كي بقول وفرح سنة كذيلو ما شاء الله. waxaan farxad noo maanta inaan aan la furo maqaayad oo cafe Banaadir magaalada aan deganahay
runtii magaalada markii ugu horeyso maqaayadna looga furo waa inkastoo aan fariisan jiray markii hore baarar cadaan ah oo aan ka xishoo jirnay inaan qaylino inaan wada hadalno Soomaali hadana waa iska hadal badannahay maanta waxaa farxad noo ah meel aniga leenahay oo saarabna u hadli karno in ilaahay noo qadaray in loo furo aadaan ugu faraxsanahay waana maasantiin dadkii meesha noo furano ilaahay qaraasi waa u mahad celinayna ما شاء الله هذا الحمزة ولي معنا أركن أنا مقاعد أو سمبوسي برو أركن جرا لكن بجيو محلي هذا يشاق بزاف لسكونا ولي معنا أركن أنا وحواي مقاعد أركن ما شاء الله ودم هذا كلام لكن تم بحن وده بيني حوالي كسيد أرتاحي بجيه يوم محلي هذا يشاق بزاف لسكونا يوم مركا وعمل لها رك بدن إني حتى يديه دوران حوين كده يديه دوران المقاعد دليفرا ما كان صوص سميه بس يو حلوي شيء يعني معلي هذا يبجيه